maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolkani Gabiley ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo xilka kula kala wareegayeen taliyihii hore ee qaybta booliiska magaalada Gabiley iyo taliyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay xilkaasi. Munaasabadaasi oo ka qabsan hotel maamuus ee magaalada Gabiley ayaa waxa ka soo qayb galay boqol salaadiin waxgarad iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan saraakiil ka socota ciidamada nabadgelyada. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolkani Gabiley. dambiyadii aan u wanaagsaneyn gobolka ka jira dhinaca Ilaahay dhinaca bilaad kaba dambiga ugu weyn maanta meesha ka dhacay taxriib waxaan inaga war ku haynaa in xiriir loo ootay dadkii tahriibayaasha ah oo maqashayaal ka sameysmeen goobtan oo lagu ciqaabo dadka masaakiinta ay socotada maanta warbixinta aan ku yeelayaa in meel magaalada xeelad laga helay imika lagu ururiyay dad tahriibayaal وبرضه لو جاب مسافرين حد كيلا قوي دارا maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaa xilkii loogu wareejiyay taliyaha cusub ee qaybta gobolka Cabdi Muuse Cabdilaahi ugu horeey waxaan leenahay taliya ku soo dhawow gobolka waxaan rajaynayaa insha Allah taala in wada shaqay fiican in dhex mari doonto waxaan Ilaahay ku weydiinayaa inuu ku baryaanayo mas'uuliyadda culus ee hore u soo haysay maanta lagu soo wareejiyo gobolka Gabiley inuu Ilaahay sidii tii burcado ugu soo asturay gobolka Togdheer sidii yasilamida oo gobolka Gabiley ugu asturo runtii gobol ballaaran baad ka soo wareegtay gobolka Gabiley oo gobolkaagii labaad aad iyo aad runtii kugu soo dhaweynaa sidii aad burco uga shaqeynaysay ugu shaqeynayay si ka si fiican oo baan runtii rajaynayaa inaan sidoo kalena waxa iyagu halkaasi ka hadlay waqasha iyo salaadiin iyo waliba waxgaradka magaalada Gabiley taliyaha jeelka weyn ee magaalada Gabiley gobolka Gabiley Cabdi Muuse oo ahaan markii hore taliyaha qaybta Burco Cabdi Muuse waxa leeyahay Cabdi Muuse gobolka Gabiley u baahnaa hawl badan oo ku taala waxaan salaam ku ranay soo dhawaanayna taliyaha cusub galbeed waa u timid barina waa ka timid midba dhaqan buu leeyahay labadana waxa filayaa labadaba dhaqankooda baratay galbeedku waa qayliyaan markaa waa la gartaa waxay barigu wadaan galbeedka lama garto waa kuwaad ka dhalatay gabagabadii waxa isaguna halkaasi ka hadlay taliyaha cusub ee maanta xilka la wareegay Cabdi Muuse Cabdilaahi saraakiisha ciidanka kullu way maqlayaan أنا قلت كل يوم بارو وحنا ندور قادر واحد جرو إما كوك سهلية نين حرق تهريب وقطي هي نين مخدرات وقطي يقول لي مش كسيد ميو هاينا أنا ندور قادر نين بيرضت كلاقول دبنين نقدون قبيلة وحري الله وقطه أما وجه intaasi kadib maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Umar Cabdi ayaa taliyahaasi ku wareejiyay gaari taksi ah oo dawladda hoose ee degmada Gabiley ugu deeqday ciidamada nabadgelyada isla markaasina ay ugu tala gashay in nabadgelyada guud ee gobolka laga shaqeeyo hadii la yiraahdo intaasina waa ammaanadii taliyaha ciidanka iyo maxamadayga aan soo gaarsiinay waanu mahadsan tahay waana kugu mahadcelinaynaa aad iyo aad waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Shubba Hadwanaag News magaalada Gabiley.